waxaa maalintii labaad waddanka Djibouti ka sii socda wadahadaladii u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya. Shirkani wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya ee maalintii labaad ka socda waddanka Djibouti oo ay goobjoog u ahaayeen madaxweynaha martida loo yahay ee waddanka Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geele. waxaana shirkaasi intii uu socday ka hadlay madaxweynayaasha dalalka Somaliland iyo Soomaaliya Djibouti. shirkani wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya ayaa la soo gabagabayn doonaa maanta gelinka dambe iyadoo oo qodobo laga soo saari doono, waxaana qodobadaasi soo saari doono oo shir jaraa'id ku qaban doona marka shirkaasi soo xidhmo guddiga isku dhafka ah ee ka kooban dalalka Somaliland iyo Soomaaliya. hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa. run hal la isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo, wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run ha laga dhigo hal rumeey. maxaa aan contribution maxaan ku tarnaa shirkana inuu guuleysto oo wada guuleysano. aad iyo aad baan soo jecel, aad iyo aad baan u hadal. waxaan oo daran warab shirka iyo ummadda in sugaysa maxaa lagu guuleysan karaa, intee imka la suuliyo laga heshiin karaa, inteeba adag maxaa la qaadi karaa. Maxamed Jaamac Waale, warbaahinta qaranka Somaliland, Djibouti.